waxaan doonayay inaan saddex arrimood uga faa'iideysto oo aan ka hadlo runtii muddo fara badan miidiyaha ama bahda saxaafadda layguma arag waxa laga yaabaa in la leeyahay war cali ma fulay baa war ma nacas baa war ma xilkuu ku hadli jiray war muxuu u aamusan yahay war miyuu baqay war ma xoog buusan hayn war ma dana siyaasadeed iyo dana sandanuu leeyahay war ma xoogaa buu sugayaa waxaasoo dhan waxaan leeyahay saaxiibayaal ma jirin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mar waa yarxan xanuunsanayay intii ka dambaysana dadaal baa igu jiray dalka Soomaaliland waa jeclahay inaan u turo oo wax badan oo qalada oo aan arkayo aan idhaah qarsado oo aan la aamuso oo intaa aad sheegayseen oo dhani ay run tahay oo aan idhaahdo wixii la doono hal lagu yiraahdo waxaan ka maarmi waayay habeenkii xalay ayaa waxaan daawaday xafladii bisha afarteedii qalin jabinta jaamacadda Boorame ardada wax baratay ardada ka qalin jabisay taariikhdoodii iyo waqtigoodii iyo jaaniskoodii wacnaa yaan daawaday xafladii dhexdeedii marka hore ardada xafladda qalin jabiyay waan mahad celinayaa reer Boorame iyo sida loo soo agaasimay iyo sida xafladda loo hagaajiyana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay dhalinyarada waa sharafteen Allah idin sharfo waxaan ka soo qaadanayaa arinta hadaladii mas'uuliyiintu ka jeedisay oo ma tixraacayo hadaladii shacabka saddex mas'uul oo aan arkayay hadalla ay jeediyeen baan laba kamid ah tixraacay midna waa taabanaya hadalladaasi waxay mid wuxuu ahaa Faysal Cali Waraabe Faysal Cali Waraabe runtii waan uga mahad celinayaa dhowr jeer baan dhageystay oo aan xalay qura ahayn isaga oo leh war maxaa Soomaaliland igu ilowday intaasoo jeer baan doorashada galay xusbiyadii ugu horeeyay baan ahaa ee samaysma waxaan u markhaati furayaa inay runtii tahay waxaan u markhaati furayaa saddexdii xisbi qaran tartamay bilaabay qarankan seeska u dhigay dimuqraadiyadda ka shaqeeyay inuu ka mid ahaa oo hadduusan ka koowaad ahayn ka labaad yahay sidaa awgeed waxaan leeyahay Faysal wuu mudan yahay wuxuu mudan yahay in la doorto wuxuu mudan yahay dalka inuu madaxweyne ka noqdo wuxuu mudan yahay inuu hogaamiyo Soomaaliland waxaana isleeyahay hadduu Faysal muddo hogaamin lahaa dalka 3 sanadood ama 2 sanadood ka yar in ictiraafku degdeg u iman lahaa waxaan isleeyahay waa nin runta ku fiican waa nin diinta ku fiican waa nin akhlaaqda ku fiican waa nin aqoonyahana waxaan ku qirayaa Faysalow in meel lagaaga dhacay aad xaq u leedahay waana ku dooran doonaa hadii Ilaahay calaf kugu daro wax walbana calafka ka akida aad iyo aad baad u mahadsan tahay ninku inuu sheegto runtiisa gartiisa cadaystana waa laga maarmaan reer Soomaaliland waxa la wixii cadaalad iyo Soomaalinimo doonaya Faysal gartiisa ha sheegeen oo ha uu sheegeen wixii wanaagsan ee uu qabtay oo ha uu tilmaameen inuu xaq u leeyahay Faysal taas ka baxaya waxaan dhageystay ninka la yiraahdo Muuse Bixi oo aniga saaka idin la hadlaya gudoomiyahaygii xisbiga kulmiye noloshayda intii xisbiyada saddexda xisbi la sameeyay waxaan galay laba xisbi oo mid uu iga burburay kama tagin anu wuu iga burburay wuxuu ahaa xisbiga udub aad baan u jeclaa inuu sii jirana waan jeclaa laakiin calafka ka adeegay xisbigaasi wuu burburay oo saacadii buu ka baxay waxa ii xigtay xisbiga kulmiye ilaa hadda waanahay ilaa hadda yoomana hada aan idin la hadlayo waanahay saaxiibkay Muuse Bixi oo madaxweynihii doonayay inuu xilka qabto ayaan xalay dhageystay aad baan uga xumahay waxaan ka dhageystay wuxuu yiri Muuse kursigii uu Cali Waracadu u yeedhay wuu hambaliyay kursiga Cali Waracadu ku fadhiyay
wuxuu ahaa kursi uu leeyahay buu ka dhigay waxaanu nidhi caliyow ka deg aniga iyo xukuumaddii iyo xusbiyadoo dhammi ama xusbiga kulmiye sorry aniga iyo xukuumadda iyo xusbiga halkaa waxaa ka baxay sir aad u culus muxuu ahaayey jabin dastuur muxuu ahaayey wixii aynu qorannay oo aad moodo laadin lala dhacay waxaad moodo dowladnimadii in laga dhigay reero wuxuu kursigaasi u muuqdaa kursi la siiyey reer oo nin siiyey oo loo bariyey oo reero kale oo isaaqi isugu tageen oo la war bal qoladan kursigan aan siino waxa nasiib darro ah kursigaasi waa kursi qaran waa kursi dastuur leh waa kursi sharci ku fadhiya kursiga ina cigaal oo ay Muuse Bixi isku reer yihiin ma wada caaye oo ma oranayo reeraha qalad galay ina Bixi waxaan ogahay inuu ninkii la oran jiray ina cigaal yiri dhul baahante iyo warsangeli kuraasta ugu waaweyn arrimaha dabadda maxkamadda sare xeer ilaaliyaha guud iyo raxan wasiiraha inay gacanta ku hayeen inay ugu saami wacnaayeen dadkii Soomaaliland ku noolaa marra ma aanan oran kursiga waa kursi reer hebel marra ma aanan oran hadiina laga qaado reer hebel baanu siinay marra kuma aanan faanin naxariistii janna Allah geeyo kaasiba siyaasi buu ahaa qiimo badan nasiib darro ayaanu arkay Muuse oo 12 casho ay ka harsan tahay doorashadii inuu maanta yiraahdo reer hebel baan kursiin aad baan waxaan leeyahay Muuse arinta ku oran maayo habara wala raali geliso dadka lagu gafay oran maayo Soomaaliland dhan baa lagu gafay mana oranayo reer baa lagu gafay because anagu reer Soomaaliland baana reer Soomaaliland bay u taalaa raali gelinta waxa ka soo baxay gudoomiyaha xisbiga waxaan inta ku daraya waxaan ka xumahay oo hore u dhacday oo markii labaad dhagahayga ku soo noqotay maalintii xafladda anigu wasiirkii lagu bedelay wasiirka dakhiliga reerkiisa beeshu ku fadhiyo shaqada iyo arrimaha bulshada ayaan ahaa markii xilka layga qaaday kan lay magacaabay waan u hambaliyay waxaan ku uri kursiga weyne kursigayga gooyay aad baan uga mahadcelinayaa waa iga sidiisi markii maalintii xafladii aanu nimi nasiib darro ana ugu horeeyay oo hadlay cali waracade oo markii ugu dambeysay hadalka ka hadlay ayaa wuxuu goobtii ka sheegay iyagoo xukuumadii oo dhami fadhido xisbiyadii oo dhami fadhiyaan dawladii oo dhami fadhido wasiirkii bedelayay fadhiyo inuu yiraahdo kursiga madaxweynaha reerkiisa iyo Soomaaliland oo dhani wixii mas'uuliyadda wax ku lahaa way iga bariyeen waana garawsaday markii la yiri beeshaas oo qatan baynu siinanaa ku wareejiya waa markii labaad xaasha kala ma geeyno Soomaalidu ma hadad maanta isku cusub Soomaaliland ma hadad hadda isbaranaya waa dad waqtiyo badan iyo taariikh badan oo aanan ba aniga iyo ragli jirin soo jiray hadalkaasi hadalna la oran jiray maaha cidiina tirina iyagay u taala jidhkeegana ma dabqayo laakiin waxaan leeyahay war Soomaaliland cadaalad baa dhaqda Soomaaliland wada jir baa dhaqa Soomaaliland waxa dhaqa wada noolaansho Soomaaliland waxa dhaqa qabyaalad la'aan Soomaaliland waxa dhaqa in wax la wada leeyahay taamarka ka gudbo waxay taabanayaa dawladii Soomaaliya ee burburtay sababtay u burburtay ma oranayno way fiicnayd dhaliilahaas ay ku xumaydna saaka ma sheegayo oo wixii jiray wala isla ogaa waxaan salaayahay waxay sababtay dhowr nin oo awaan ah waxa kamida Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays maaha SNM xabad kurdi maaha SSDF in xabad kurdi waxay eersatay Cabdi Maxamed Aamin oo reer koonfur ah Cabdi Qaysna yahay reer Qooya waxay eersatay Hebel Maxamed Aamin
oo isna abwaan reer Boorama waxay eersatay maruriyooday iyo rag badan oo kale oo adraaw ka mid yahay waxaan leeyahay cabirka faraha badnaa ee aad cabirteen waxna sax bay ahaayeen waxna waa dhici kartaa inay qalad ahaayeen sababta idin diiday inaad tan ku soo dhawaataan ma qabyaaladba maxaa idinku dhacay xaggaad aadeen maxaa kaga dhawaajiyay inamada yaryar ee weersama ka mid yahay ee ina xasan gani ka mid yahay iyo macadaalka kuwa kala badan waxaan leeyahay afkaarta dhacday wax lagu cabiri karaa heeso gabayo siyaasad iyo suugaan wadareed iyo suugaan qofeed intaba haddii ilaahay idan ka dhigo Cabdiqays waxaan ku xujeynayaa maanta oo miiska soo taagaya oo ilaahay ku arkaya inuu maasada laga tirin doono number 1 ka noqdo oo cabiro tay noqon doonto aniguna marka ay Cabdiqays galo ee ragiisi galo ee weersamiye ragiisi galaan raaca saddexaad baa noqonaya xalay baa gabaygu igu soo digi